أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan marka hore salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum asalaam marka labaad waxaan salaamayaa si gooniya ugu helnayaa siday ii aamineen sidaan hogaamiye ugu ahaa uguna ahay wali kooxda tala ku nool aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan kaloo sida kaloo salaamayaa taageerayaasha tala ku nool kooxda tala ku nool iyo mabaadi'daagu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay timid halkan maanta meesha ay joogto waxaan rabaa inaan la wadaago arrimo degdeg oo soo koran marka ugu horeysa waxaan ka soo baxay shir khadka telefoonka ee aan la galay dhammaan xubnaha tala ku nool runtii wadanka dhinaciisa kala duwan caalamka dhinaciisa kala duwan ay joogaan shirkaasina wuxuu ku saabnaa sidaan u wajihi lahayn xaaladda aan soo food saartay waxaan rabaa inaan idin sheego by now waqtiga xaadirka oo la joogo waxaan maleynayaa inaad taqaanaan qofka aan ahay Sufyaan Sheekh Axmed loogu magac daray Farxaasle la yiri ninka caalanka ama raba astaanta inuu bedelo la yiri ninka oo waxyaabo kale oo fara badan waxaan rabaa marka inaan la wadaago halkan maanta ku soo fadhiistay in maalintii aan soo bilownay arrinta ah in aan bedelno caalanka iyo astaanta qaranka oo u ololeyno oo ceebaha iyo ciladaha uu leeyahay banaanka aan keeno laba bilood markii la joogay oo la arkay arrintaani in ay san ahayn arrin laga hor imaan karo arrin xaqiiqa arrin run ah arrin qofna uusan diidi karin dadkii samaystay iyo dadkii u adeegayay way la soo xiriireen waxaa la yidhi Sufyaanow waxaan rabnaa inaad qaadatid lacag $2 milyan $2 million qaado ams programkaana kaar intaan calanka iyo waxaan iyo kaardhiyo ilmaha leedahay reeraa leedahay Farxaas la tahay ilmaha iska biilo guriga iska iibso raaxayso nolosha kaar waxaan faraha ka qaad waadiday adag because qadiyada tala ku nool iyo qadiyadaydu ma aha mid la iibsan karo laakiin meel bay iska life waa ugu degdeg markaan diiday muddo kadib waxaa dhacday in xubno ka tirsan dawladda ma aqaan dawladda oo dhan inay isla ogeyd iyo qaar ka tirsan inay ahaayeen rag baa soo wacay telefoonka igu soo wacay yiri waxaan nahay dawladdan ka tirsanahay waxaan ku siinaynaa xubin agaasimi xubin aan ku siinaynaa markii wasiirkii hore arrimaha dibadda uu joogay xilka waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa xubin baan ku siinaynaa agaasimi baan ku siinaynaa arrintaa faraha ka qaad waxaan ku yiri $2 million aan diiday agaasimi $2 million na waa fahmi kartaa inta isu jiraan difference u dhaxeeyo arrintaasi markay halkaas tagtay waxay go'aansadeen marka in dadkaasi ay weeraraan yihiin marka ugu horeysa aan idin sharxo dadkaas waxa fangareynaysa hay'adahan Talyaaniga uu leeyahay ayaa lacagta bixinaysa waxay lacagta siinaysaa hay'ado kale oo jira ay lacagta siinaysaa hay'adahaas markay lacagta siisana weerarku halkaas ka imaanaya hadda maantay waxa soo cusboonaado emergency arrintan aan soo galay in baraha bulshada la soo dhigay Sufyaan Sheekh Axmed waa nin dilaa ilaa iyo waxa la tirinayo ma 7 mise waa 9 qofood soo dilaan warba awaaya arrintaas daraadeed aan soo fadhiista runtii waa wax lagu qoslo balse waxaan rabaa waxay leedahay runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan live kan soo galo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago arrintan waxaan rabaa videogan inta aad ku jirtid waa muhiim waa wax loo wada digniin loo wada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad share gareysaan oo ku share gareysaan dhammaan meelaha aad ku share gari kartaan waan kaga mahadcelinayaa waa arrin xasaasiya waa arrin muhiima waa arrin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo hor u socdo qaranka Soomaaliyeed maanta marka arrintaas soo gashay arrintaas daraadeed u sabab marka waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waxay ahayd wixii aan soo marnay oo qarinoona bulshada u sheegin iyo qaybo kale oo aniga noloshayda kamid ah saad u fahantaan okay markii agaasimo qaada la yiri wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday waxaa la bilaabay marka weerar in lagu soo qaado weerarkaas oo ah in la iga suucay la yiraahdo markii ugu horreysay waxa weerarkii ugu horreeyay wuxuu ahaa in lagu soo weeraray in aan nin western ku soo adeegsaday la yiraahdo tayga uu wato iyo suudka uu wato iyo waa gaal waa shaydaan waa sidan in sidaas la igu dacayday arrintii idaad waa shaqeylada waa shaqay weysay markay halka shaqay weysay hadda dhinaca kale la jeeday waxa la yiri ninku waa al-shabaab waa takfiir
ilaa sawirkayga inta la qaaday sawir al-shabaab qoryo wata la dhexgeliy ayadana waa shaqay weyse markii intaas ay sameeyeen waxaa timid marka in la weeraro lagu soo weeraro arrin khayri ah oo islaamka u fiican oo caadooyinka islaamka qurqaadooda ah aniga iyo xaasaskayga guurka aan u soo bandhiga bulshada si aan tusaale ugu noqdo in lagu weeraro asaga oo laftiisa cid looga dhigo oo lagu caayo oo diinta loogu gafo oo ogtihiin dad badan diinta loogu gafay ayadiina waa socon weyse waxaa soo gala marka in personal attack marka waxaa la yidhi marka ninkan mar haddii aanan dili karin dhambaalka waa inaan dilnaa dhambaal wadaha if you cannot kill the message kill the messenger haddaanan dhambaal ka dili karin dhambaal wadaha dil macnaha doodii tala ku nool ahayd calanka in la bedelo oo la yidhi 2 milyan ku qaaday iska daa oon diidnay oo la yidhi agaasima ku qaaday iska daa aan diidnay doodiina aan cidna celi karin shacabkii Soomaaliyeedna ay fahmeen oo qaateen waxaa ka dhalatay in ay timaado in shakhsi binaadam soo rsaakay shacabkii Soomaaliyeed inay qaateen haddii shacabkii Soomaaliyeed marka qaateen dadkaasi waxa meesha dhigta markii hore dadka qortay constitutionka ama dastuurka gaalada ee meesha yaal dadka qortay heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo shaydaanka meesha jooga ma bixin wali shaydaankii wali meesha jooga ma bixin wali uu taagan shaydaan waxaan rabaa qof kasta oo islaam oo dhageysanaya inuu sii shirkireeyo oo beejajka sii geliyo si shacabka Soomaaliyeed u dhageysto waa arrin muhiim waa arrin khatarteeda leh waa arrin aan ugu talagalay in uga jawaabo su'aalo badan oo banaanka yaala waxyaabaha maanta la soo dhigo social media Sufyaan 9 qof uu soo dilay arrintii markii ay waxba ka qaban waayeen markay arkeen in hal ekaatee dhambaalkan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo haybta korka in la baabi'iyo in taariikhdii dib loo qoro oo la soo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in banaanka la keeno waxay go'aan ku gaareen in aniga la soo weeraro oo la yiraahdo haddaanan dili karin dhambaalka uu wado Sufyaan Sheekh Axmed iyo tala ku nool kooxdaasi haddaanan dili karin asaga aan dilo marka ka takhalusna saa waxaad qiyaasi kartaan marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC-da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysa wariyaalka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinaciisa dada lacag la siiyay waxaan lacagta loo siiyay in aniga magaca la iga dilo haddaan ba aniga la dilin ba inaan magaca la iga dilo waxay sameeyeen marka waxa lacagta fangareynaya hay'adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay isku tagaan journalism ku isku tagaan waxa lacagta fanka sii bixinaya hay'ad Talyaani soo Talyaaniga lacagtii bixiyay warar kale waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray 2 sano 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaasa wata okay banaanka la soo dhiga maanta waxa la yiri ninkii Sufyaan ahaa ninkii aqoon-yahankii ninkii professorka ahaa ninkii afar xaaslaha ahaa 9 qof uu ka takhalus 1991 haye dadka aniga yaqaana aan rajili baana jacadaan ku dhashay laakiin jilibaan ku soo koray jilib 1991 ka soo tagay dagaalku markii Soomaaliya uu ka qarxay oo Siyaad Barre soo baxay ayaan soo galay Muqdisho haye nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaadama ay waligiis jabhad kama soo shaqaynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo problem markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira haye intaasan jiray haye maanta marka waxa la taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1991kii 9 qof uu soo dilay 9 asaa dilay hada waa nimanka la sheegayaan nimanna de ma aqaan waxay yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira haye marka waxa fangareynaya BBC-da oo lacag ka helaysa hay'ado Talyaani intaan hubo Talyaani ujeedadu marka waxay tahay waxa la yiri maamaha baa jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger haddaadan dhambaalka dili karin dhambaal wadaha dil dhambaal wadaha ka takhalus dhambaal wadaha dil maadaama la dili waayay
oo ay dood ka keeni waayeen maadaama ay difaaci waayeen maadaama waxdooda laga keeni waayey in calanka Soomaaliya uu yahay calan lagu caabudo shaydaan maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uusan samaynin cawaale maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uu yahay calan 1989 Soomaaliya yaalay intaas markay difaaci waayeen oo ay caddaha maanta banaanka soo dhigna astaanta qaranka ee Soomaaliya calaamad Kristaaniga ku jirto tanna ay tahay calaamad shaydaan dadkiina ay qaateen go'aanka la qaatay wuxuu yahay marka Sufyaan al-Bukhari la iskal Sufyaan aan dilno Sufyaan marka aan ka takhalusino xageen ka marnaa wal Muqdisho ma joogo oo qorin loo soo dhiimaayo hadhow inta igu dilaan dhiimaayo al-shabaab aadili because usually say u dhacdo saas waa Muqdisho marka joogtid iyo Soomaaliya hay'adaha qof soo siinaysa hay'adahaas qalaada lacag bixinaayo qofkaas la soo cunaa lagu wala soo cunaa hadhow marka dhimatana waxa leeyahay oo al-shabaab aad shinkaas we all know that taariikhda soo wadagna kulliga hadan Soomaalina marka wadan waxaan joogaa xoogaa arintaas aysan suurtagal ka ahayn waxa leeyahay marka maadaama ay saas tahay asaga sumcadiisa hal dilo dadkaas macnaha dad dhintay hadda ma aqaano runtii xaqiiqdu waxay tahay hal la soo qaato waxa la yiri ayagana dusha loo saaro okay marka intaas la yiri marka dusha loo saar leeyahay ujeedada laga rabo waxay tahay oo ugu muhiimsan kow in aniga dhibaato la geysto shakhsiyan naftayda la damage garay macnaha la dilo la dhaawaco wax lagu sameeyo haddii intaas la waayo oo intaas ay suurtagal weyso in markaas kadib sumcadeeda la dhaawaco oo shacabka Soomaaliyeed ee fahmay waaqiciga jira ay cabsadaan إلا مركز توقف إسلامي وصبحه وصبحه ودن كيس إنه دفاع ذو وصبح الدين تس إنه دفاع ذو وحالو صدرا دتكي كاليتو دتكي على عبس قليا مركز عبس قليسكي وين مركز إلا عبس قلي اللي هذا آموس شعبك اللي يقدروا دتكي أسد دمعك أنت اللي يقصو جيديو اللي هذا إن كانوا وانين نوعاسة فنقربوا قبا وددوا سودلي وحصلوا إلا عادي كل أدوار يقصو قبل مالي وحياة الشباب أنا هاي أو لمن أرجع حسا لحظة اللي يقصو صوري أو هبوتا maalna waxay ahayd in la yiraahdo waa gaalo ninkaan taay waxba wata intii box guuliso marba dhinaca maraysa maanta marka waxay taagan tahay in BBC da la soo siiyo contract wariyaal BBC da ka socda ay wadaan programkan in Sufyaan Sheekh Ahmed lagu eedeeyo sumcada loogu dilo iyo sharafta karaamada loogu dilo in uu dilay 9 qofood ayaa wada Soomaaliya iskaga soo cararay qurbaha aaday you know waxa kala soo socda qaar kalena tan laftirkeeda iska dhaafay qaar kalena waa soo socdaan arrimo la midna waa iimaanaya waxaan ka codsanayaa shakhsi kasta oo islaam oo Soomaali oo dhageysanaya si page faafi arrintan page kale si gali si dadku u daawado oo ay u gaarto dadka waay waxaan difaacanayno waa diinta islaamka waxaan difaacanayno waa wadankeeni qofkii u istaaga diinta islaamka oo yiraahdo dastuurkan ma rabee midka islaamka aan rabaa wax way waa la soo weeraray weerarkuna maanta Sufyaan ku socda haddaan marka maanta garab idinka waayo ogow mid kastoo diinta u istaaga halkaas la dhiganaya gaala soo weeraraysa hay'adaha soo weeraraya hay'adahaasna waa ku tagaan maalinba mid la baxaya ilaa wadankiina marka ugu dambaysa wixii raba laga samaysto so waxaad samaysaan intiina ku jirta hadda please share this video dadka kale share kare aan wada marka waxaan rabaa inaan idin sheego qiso kaleeto oo aniga shakhsiyan ugu saabsan taariikhda ku saabsan taariikhdaada banaan aniga saad ogtihiin baa quraan ku sheegay jaamacado badan oo Mareykan ku jiraan soo dhigtay kuwa banaankan waa soo dhigtay Mareykanku waxay ku bixiyaan lacag sanadkii $230,000 waxbarashada lagu bixinay waxay ugu tala galeen in ay iga dhigtaan their man ninkii macnaha ayaga shaqadooda u qabanay markaan joogo Spain Madrid waxa yimid niman u shaqeeya dawladda Mareykanka oo ka tirsan dawladda u shaqeeysa piano waxarna inaan anaga nala shaqeyso oo sheegay waxaan ku nimayahow ma xumayna nala shaqeeyo laakiin shaqadaan idin qabanayo saahi waxa weeyaan in aad qabato shaqo ama aad u shaqeyso arrin aad runtii samayso in aad la dagaalanto argagixisada ani waxaan ku idinamayo dhageysta argagixiso la dagaalan iyo macnaha ma rabo qaar ayaa jira aan rabin meeshaan inaan ka iraado oo xaqiiqa waxaan ma rabo argagixisada dagaal waxa isku ma jiraani shaqo kale ii dirsada waxa la adiga duqan 230,000 sanad kasta kugu baxdo waxbarashada hadda oo Madrid joogtana 230,000 waxaan sii saarna 100,000 oo kale deganaanshaha iyo guriga aan ku dejinay meeshaan ku dejinaa ma waxaan u maleysay leeyahay waxbarashadaas ilmaheena xataa ma helaan ninkii ila fadhi wuxuu yiri aniga wiilkayga xataa ma helin waxbarashada yeeshay how do you think in just
till you go Madaxweynaha inaad iska way baxaysid oo ahayd. faraha kaa qaadin oo shaqadaadii qabsanaysid mise waxaan ku barnaa rabtaa waddankaaga inaad u laabtid annaga nuu soo weerartid haye arrinta si kasta ahaatee waa diiday waa diina kab waxaa u dambeeyey in la xiro dambiye la ii sameeyo xabsi laygu tuuro waa ngal xabsiga la geliyey waxaa la dhihi jiray incommunicado shaqsi Incomunicado. bini'aadana ood is arkaysaani ma jiro adiga iyo ilaaha bes haye muddaan halkaas ku jiray jirdilaa laygu sameeyey Waay, waa laysoo waa. garaacay farahayga qaaraa jaban qaarkii waxaa laga yaabaa markaan saas iraahdo aragtaan fartaan iyo farahaan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin haye gudaha xabsiga dilka dhexdiisa laygu geystay oo ahayd inaan laygu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga anna waa diiday waa 17 qof aan ku galna meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin yamaniya ka nool bes so micnaha taas aad ka fahmaysaa wuxuu daad yahay ma ihi shaqsi lagu cabsiinayo ay intii dhimasho kala raacday because dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedaan soo arkay ma ihi qof lagu cabsiinayo haye markii dambena waxaan heshiis ku gaarnay ilaahayaa ii sahla taas hay-ad la yidhahdo care oo maraykan ka jirto u dooda xuquuqda islaamka ayaa ii dooday haye biidni illaah hay-addii markii banaanka waxaa lagu Waa u heshiiyey dooday. in ninkan soomaaliya lagu celiyo Ayaa u doodi 10 sano jirtay. aanan waxba qorin waxna akhrin siyaasadna aanan ka hadlin sano ayaan waxna akhrin waxna qorin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadna aanan ka hadlin 10kaas 10 waxay u sano dhamaa baa. lahayd 2022 haye waxay kaloo go'aansadeen marka Soomaaliya la keeno maadaama ay ka fududahay in Mareykan lagu Oo dilo markaa Soomaaliya lagu loo dilo dafay. Soomaaliya lagu Waay. dilo fududahay ayaga in Soomaaliya lagu dilo haye maalinta la keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah haye waxaa taagnay ragaala oo Mareykan oo cadaan ah taagnaa meesha wallahi fahaba waxaa la taagnaa niman askar oo Soomaaliya iyo gaaf Soomaalida, nin la yiraahdo haye. oo immigration ka haystay haye arrintaasi waxaa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qadada waa ogeyn lawyerkayga ay sheegay waxaa meesha soo galay airportka dhexdiisa allah u naxariistay nabadoon axmed diiriye oo ahaa adeerkay iyo ehelkayga walaalkay ehelkayga kaleeto haye waa la isku qabsaday ninka annagaa Waa la wadana iyo isku annagaa wadanayna in la jiijiiday noqotay haye ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo i wadaan oo ayaan haysta. beri ku noqday alxamdulilah ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay haye micnaha taas marka kale aan kusii daray wuxuu yahay haddii allah subxaanahu watacaala uu ii qoray inaan dhinto waa dhima laha haddana taas been marka ma allah aha. ii qoran dhimanayo Been laakiin maaha muhimka taas. wuxuu yahay si kastoo la ii cabsiiyo si kastoo hay-ada lacag u bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo ah in Soomaaliya ay noqoto dowlad islaam ah oo madax aanan bannaan qori qaadan hal qori aanan qaadan hal qof aanan dhaawacin waa ku tan guulaysan kaga shaqaysay. haddaan noolahay haddaan dhintana dad kaleeto islaam oo fara badanaa jiro oo soo baxaya taas walaalka ma qabo waxaan marka rabaa inaan idiin sheego horumarku kaliya noo sheeg aniga contractigii aan Mareykanka la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waa jabiyey waxaan u jabiyey because of wadankayga dhibaatada haysata waa dooro karay naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro karay laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada wadankayga uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaaray si lagu qolo wixiina aan aqaano mas'uuliyadda isaaran mas'uuliyadda isaarna waxay tahay in aan u istaago shacabka Soomaaliyeed iyo wadankayga iyo diinteeda oo jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano Mareykanka incommunicado haye haye oo laygu dilay oo laygu jirdilay ah maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso waa minka xalawtiga habeenkii xalay mana samaynayo Inaan afka waxaan leeyahay marka nimanka BBC du contractiga soo soo wariyaalka oo leeyahay ninkan hal cambaaro leeyahay wariyaal waa because wariyaalka waxa kale loo leeyahay macnaha in layga maro dhinacii idaa warbaahintii oo haddii warbaahintii loo sheego leeyahay ninkan dad uu soo dilay wariyaal waliba soo dilay dad kale soo dilay hadii leeyahay waxa laga yaabaa in la yiraahdo waaw Soomaaliya 1919 waa la soo dilayay dhib ma laha waa dadka dhan Soomaaliya dhan dagaalamaysa in la yiraahdo laakiin hadii la wariyo dilay macnaha nimankii dadkii kale wari waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliya la wadaago waxaan ka codsanaa dhamaantiin inta ku jirtaay qof walba si shir gareeyo si message waa free share dhammaan bulshada Soomaaliya because arrintaani waa arrin diini waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato isoo gaarto ama because of arrintan la igu dilo ama dhibaato kale igu timaado de waxay noqonaysaa haddii la yiraahdo qof walbaaba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay waddankana difaac waxaan u reetal ku noqdaan u dagaalamaynaana waa difaaca diinteena iyo waddankeena waxaan rabaa marka inaan kusoo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo filosofigayga
caqiidadayda wax lagu dagaalkayga dhaqo, wax kaas lagu waay. maamulo si iyo kastoo lay ayaan cabsiyana aaminsanahay. dib uga degi maayo anoo xabsi maraykan lagu dilaayo hameen kasta anoo hameen kasta lay garaacayo anigoo quraanyo laygu fadhiyey anoo duudi cidiyaha laga geliyo masquul aan jiifanayay macnaha dhowr iyo 10 maalmood masquul aan jiifanayo bahalka intuu galay ilaa iyo lugaha jilbaha uu yimid waligay dib uga degin hadda maanta cabsi dib uga degayo marka nimanka programkan wado dhahay ninka hal cabsiyo waa inaan dhinto un baan baaraantaas wax kaloo iga reebi karaay ma jiraan iyo Allah subhanahu wa ta'ala qadartiisa kale ugu dhacdo waxaan marka shacabka Soomaaliyeed la wadaago waa idin jeclahay barnaamijka tala ku nool haddii maanta anigu aan tago laynka tala ku nool qofaa kusoo jira oo diyaara inuu positionka soo galo marka hataa waxaa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakerino isma dhihin war ninkaani ma keligiisa mise dada la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arrintaas iyada ahi dhambaalka aniga aan wado ee Soomaaliyeed ee ah in la difaacdo diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena waxa weeye waa arrin muqadas ah waan marka ka harin idinkana saas aan ka rabaa Sufyaan Sheekh Axmed weeye waa idin salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nabad baan isku ognahay arrintaasna ha laga hadlo ha la difaaco dadka dacaayada suuqa wado Sufyaan saan weeye oo Mareykan laga soo tarxiilo oo war Mareykan waxa uu naqaan male annaga la faheena aan wala soo cararnay in la ku dilo 17 qof aan xabsi ku galnay anagoo laba ka noqday yaryarmeen aniga marka wax weyn aduu ku leeyahay ani wax weyn meelaha waxa wax weyn la diinta islaamka iyo dalkayga marka sidaas ay inoo ahaanaysaa sidaasaan isku ognahay annagu ma gambanayno qadartu maalinta inoo timaadana hadda wasalaamu calaykum waxa weeyaan tii fiicnadaan u soconaa ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ilaahna aan ka baryaaya arrintaana inay noqoto cibaado ilaahay inuu asiib siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay kaas wuxuu ahaa Sufyaan Sheekh Axmed oo wax walba soo bannaan dhigay wax walba bannaanka